markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiiraha isku dur daawade maxaad ka og tahay madaxweynihii saddexaad ee soo mara dalka Soomaaliya? maxaad ka og tahay madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa ee soo mara dalka Soomaaliya, kaasoo ahaa nin saameyn weyn ku dhaxlay taariikhda Soomaaliya iyo tan Afrika oo dhan? madaxweynahaasoo talada hayay in ka badan 20 sano. halkani kuma eegi doona taariikhda madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, balse waxaan ku eegi doonaa khudbado muhiim ah uu bixiyay waqtigii taladu hayay. haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe noo saar. haddii hore noola joogtin aad ku mahadsan tahay. daawade, muuqaalkani wuxuu muhiim u yahay bulshaweynta Soomaaliyeed. waxaan halkan ka qaadan doonaa dhiirigelin muhiim ah. haddii aad rabin waad ka socon kartaa, balse haddii xiisaynayso waad nala dhammaysan doontaa. muuqaalka dhammaadkiisa waxaan isku weydiin doonaa su'aal muhiim ah ee daawasho wacan. waa anigoo ah Cabdixakiin. haddaynu qabsanno waxeenna waa noolaan karna, laakiin bisharad iimaanku inuu nagu soo noqdo wey. in gobonnimada dalkeenna iyo dadkeennu inagu weynaato wey. iyadaa ka faa'iida roonta ogow, iyadaa ka raandhisroon, iyadaa ka macaan. maxaa wacay shakhsiyaddaada toosaysa. dadkan Soomaalida ah waa ka buuxaa hal abuur. waxaan filayaa hadda inay gudbeen wakhtigii ay qalinkii waraaqda la kala baqi jireen inay gudbeen baan moodahay. waxaa loo baahaya mabdacadda in la xoojiyo oo buugta la daabaco baa loo baahaya. oo wasaaradda tacliinta sare, haddii haatan wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintu ay ku hawlan tahay ilmaha buugtoodii daabacoodii, iyagu inay ku hawloonadaan in ninkii wax qorayaaba uu qoro. laakiin khiyaal waxtar waa waddanka waa inuu yahay iyo ummadda waxtar waa inuu yahay. yani qofku wuxuu ka cayilaa waa dareenka, wuxuu ku cayilaa waa akhriska marka. oo fikrado kala guddo intaasoo buug uu akhriyo, oo qaar taariikh yahay, oo qaar dhaqan yahay, oo qaar hiddo yahay, oo qaar dhibaato la soo maray yahay, oo qaar khayr la helay yahay. waa inuu waxaas wada akhriya. markaasuu cayilahayaa maskax ahaan iyo dareen ahaanba. wax ku oola noqonaya cilmi runa markaasuu dhadhaminaya. marka in la xoojiyo mabdacadda weeyaan. in wasaaradda waxbarashada, wasaaradda tacliinta sare iyo hay-adaha ka hooseeya inay aad isugu taxalluujiyaan. Soomaaliya ma likay ahayd maanta miyay dhalan? ma dhalanay. muddo dheer bay jirtay. awa hiddaheedii saqaafadeeda caaw. miyaan loo baahnayn in la soo faago? miyaan loo baahnayn in loo sameeyo meesheedii lagu daawan lahaa? imisaa magaalaha xabaalan yaa soo faagay? halkaas bayna taariikhdeenna ku jirtaa oo laga helaya. iyo ciddaan ahayn. alaabtii waa xabaalan tahay, guryihii waa xabaalayiin, waa xarabayiin, waxay ku dhaqmi jireen waa xabaalay, hiddoodii waa xabaalay. waana xaqiiqa. cilmiga runta ah ee taariikhda Soomaaliya laga baari lahaa ama qiimaha Soomaaliya laga baari lahaa meeshaas ku jira. waxaynu u baahan yihiin wax ka qabad runa. way u baahan yihiin wax ka qabadkood. waa inaan annagu qaabkeenna u qabsannaa. cid kasta oo qayb wax ku oola ka qaadatay qoridda iyo faafinta af Soomaaliga, waxaan u soo jeedinayaa magaca dadweynaha Soomaaliyeed mahadnaq iyo ogaadin iyo qiimayn weyn oo aan u qabno baan u soo jeedinayaa. waana ay mahadsan yihiin. maanta af Soomaaligii waa cayilay. buuxin buu u baahan yahay in la buuxiyo. waa saxyilay. jaahilnimadu maxay la bixi laadahay? ma ay bixi karto. kooxa yaryar oo af ajnebi wax ku soo bartay ma bixin karaan mujtamac. ma ilbixin karaan, mana gaari karaan nin. maxaa waaye weligii mujtamaca inta badan baa xukunta ummad iyo dalba. habkay u fekeraan ama habkay dareenkoodus yahay ama himiloodu ay gaarto ayaa ummad ilbixisa. ilbaxnimadaana keenta dhaqaalaha, keenta gaajada bi'isa. ilbaxnimadaa bi'isa cudurka bi'isa. ilbaxnimadaa dhalisa soo saaridda hiddihiiyo dhaqanka ummaddu qiimaheedu weynu uu salkeeda iyo xididkeeda ku jirta. ilbaxnimadaad keenta baaritaanka taariikhdooda. ummad kastaaba culture bay leedahay, qiimay leedahay. qiimaha weyn oo maguuraanka ah ay leedahay ayayna ku dirtaa. alaabtaasoo dhan wax doonaa waa cilmi baa doonaa. hadda marka haddaan cilmi jirin, ma waxaynu ku gaaraynaa hadal keliya dhowr qof oo khaarijka wax ku soo baratay hadal yaroo ay yidhaahdeen? maxaa wacay nolosha iyo dhaqanka iyagoo ay ku jiraan yaan koodii ahayn oo aan taabanaynin. bulsho weyntii war maxaa toosin kara? bulsho weyn waxaa toosin kara in lala dagaalamo saddexdii cudur oo kacaanku uu tilmaamay ee ahaa jahaalada, cudurka iyo gaajada.
laakiin saldhig buu leeyahay saldhigiisu waxa weeye jaahilnimada qabyaaladda jahaaladaa wadata iimaan la'aanta jahaaladaa wadata beenta jahaaladaa wadata dhabarka wareenka jahaaladaa wadata gumowga iyo biirqaatanimada jahaaladaa wadata ilaan qofkii qiimo ma leh qiimo bini'aadamu kuma jiro qiimaha bini'aadamkuna ummad bulshadeedu ka dhex dhashaa qof halkaa markuu ka dilaya maskaxda markuu ka dilaya iyo dareenka markuu ka dilaya waxba maaha isagoo haysu qabo inuu waxyahay laakiin practically wax maaha nacas hadduu kufo ma kaco nin ragu hadduu kufo waa kaca shicbiga soomaaliya abaaru hadday haysto waa inay kacdaa abaarda waa inay ka kacdaa dhibaatada waa inay ka kacdaa waa inay noqotaa ummad isku filan ummad isqaadata ummad iscashanta ummad isdaafaxda waa inay noqotaa waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira barya aadan ma ku dherki karaysaa weligaa kuma dherkaysa wax kastaba ha lagu sii inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso haddana waa markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiiraha isku dul nool dadku faqiir weeye rug weeye laakiin dalku taajir wey ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xooluu ka badiyey hawo fiican buu siiyey kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaasaan qabayna adduunka meelo badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedelaa oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabaysha iyo balaayo waaweyn la isaga celiyo annaga aad baa ilaahay noogu roon laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaarba hayna aaminsiiyo inaynaan waxba qabsana iyaga barino hayna aaminsiiyo haddana waxaad moodaa inaynu faqiirnimadii kuwa nool lahay sababihii la imaan hayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanaya dadkeenna ama dabeecadduba haddaadan la dagaalamin way kula dagaalamaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aadan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalkaa taajirka ah saanu sheegahayo dadkeennuse ma garan tajaaradaas ilaahay siiyey oo dadnimo oo dad fiican wey dadkeennu dad xun maaha daawade haddiid intaan soo gaarto aad ku mahadsan tahay daawashadaada su-aasha isweydiinta leh aan isweydiin doona maanta ayaa ah haddii madaxda dalkeena Soomaaliya ay si cadaalad ah u shaqeeyaan ayna ka shaqeeyaan horumarka waddanka ma hoos u dhac dhaqaale ayaa ku imaadi doona nafsadooda mise kor u kac dhaqaale ayaa ku imaadi doona ileen waxaan ognahay in madax ay u noqdaan lacag darteed ani ra'yi ahaantayda ayaa ah haddii waddanku uu amni noqdo halkaasi waxaa ka soo baxaya fursado aad iyo aad u badan oo nafsadooda ay ka faa'iideysan karaan xagga businesska iyo xagga beerahaba ha ahaatee haddii intaan nala soo gaartay ood ku mahadsan tahay nabadgelyo